السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوديال waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada xiisaha leh aad ku daawo doontaan hadii been laga helan waxa kamid ah madaxweynaha dalkaasi Mareykanka oo sheegay inuu mowqif adag ka qaadan doono marinka Gaza ururku Hamas oo jawaab degdeg ah u dirtay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J Trump hadaba maxay tahay ururka Hamas jawaabta degdeg ah u soo direen madaxweynaha ماليشيا مصر أياد إذا قرشها ترام كوجهان بركعينتا فلسطينيين غزة qodobadaas iyo kuwii kale nagu soo kordhayaad ku daawo doontaan haduu eebweyna laga helo balse faafahinta qodobadaas intaan u gudaglan hadii ay tahay markii kugu horeysay soo booqato barkulan media waxaan ka codsanayaa inaad YouTube-keena subscribe saarto sidoo kale gabaleelka aad furato muuqaalkan aad share gareyso aad la wadaagto saaxiibadaada hagaag hadii aynu ku bilowno madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald J Trump waxa uu sheegay inuu mowqif adag ka qaadan doono marinka Gaza madaxweynaha Mareykanka Donald J Trump ayaa sheegay in mowqif adag uu ka qaadan doono marinka Gaza hadii aniga ay ku jirto ka hor dhamaadka usbuuca ugu dambeeya ee muhiimka ah horaantii toddobaadkan Trump waxa uu soo jeediyay in la joojiyo xabjoojinta Gaza ee u dhaxaysa Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniyiinta ee Hamas hadii dhammaan la heshiisyaasha ku sugan marinka Gaza ee la go'doomiyay aan la sii deenin heshiiska xabjoojinta ee Gaza ayaa socday tan iyo 19 Janaayo kaasi uu hakiyay dagaalkii xasuuqa Israa'iil ay ku dhinteen in ka badan 48,000 oo qof oo u badnaa haween iyo caruur isla markaana Gaza ka dhigtay meel aad u burbursan Hamas ayaa sheegtay inay dib u dhigi doonto siideynta lixaad ee la heshiisyaasha sabab la xiriira jabinta Israa'iil heshiiska laakiin kadib dhexdhexaadintii Qatar iyo Masar heshiiska ayaana lagu wadaa in la dhaqan geliyo dhamaadka isbuucan sida lagu heshiiyay Trump ayaa sheegay in Hamas ay doonayso inay mar kale sii deysto heshiisyaal dhawaan Trump wuxuu soo jeediyay in uu la wareego Gaza oo dib u dejin ugu sameeyo Falastiiniyiinta dalalka dariska la ah oo urur godoominta River of Middle East soo jeedintani waxa uu kala kulmay cambaareed aad u badan oo kaga yimid wadamada Carabta iyo kuwa kale waa hagaaga daawadayaal wili waxa daawaneysaan wararkii ugu dambeeyay caalamka balse hadii aynu eegno ururka Hamas oo jawaab degdeg ah u diray madaxweynaha dalkaas iyo Mareykanka hadaba jawaabtaasi waxa ay tahay war ay soo saareen ayay Hamas ku sheegeen in siideynta la heshiisyaasha ay maanta muujinayso inaysan jirin qaab kale oo loo siideyn karo la heshiisyaasha ku sugan marinka Gaza marka laga reebo iyadoo loo marayo xabjoojin loona hogaansamayo waxyaabaha laga rabo heshiiska xabjoojinta ee ka dhaqan galay marinka Gaza kooxda ayaa intaasi raacisay waxaana dunida oo idil ku leenahay ma jirto u haajiridda marka laga reebo in loo haajiro Qudus tan ayaa jawaab u ah soo jeedintii madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald J Trump ee ahayd in la barkiciyo dhammaan bulshooyinka reer Gaza lana geeyo dalalka dariska la xasuusin ahaan inta maanta la siin deyn doono la heshiisyaasha iyo waxa uu mudan doono heshiiska xabjoojinta Gaza qudisa ma cadeyn doono toddobaadkan oo dhan horaantii toddobaadkan Hamas ayaa sheegtay inay sii deyn doonto la heshiisyaal iyadoo sheegtay in Israa'iil ay carqaladeysay qodobada heshiiska xabjoojinta ee ka dhaqan galay marinkaasi Gaza waa hagaaga daawadayaal waxaan isla soo gaarnay guntii iyo gabagabadii balse hadii aynu eegno Masar iyo Malaysia ayaa diiday qorshaha Trump ee ku wajahan barakicinta Falastiiniyiinta ee Gaza hogaamiyaasha Malaysia iyo Masar ayaa jimcihii diiday qorshe kasta oo lagu barakicinayo Falastiiniyiinta ku sugan marinka Gaza Ra'iisul Wasaaraha Malaysia Anwar Ibrahim ayaa sheegay goor dambe jimcihii inuu la hadlay madaxweynaha dalkaasi Masar Abdel Fattah al-Sisi oo ay ka wada hadleen xaaladda bini'aadanimo iyo dadaalada dib u dhiska marinka Gaza madaxweyne Abdel Fattah al-Sisi iyo aniga waxaana si adag ugu hadlalnay isku day kasta oo lagu doonayo in Falastiiniyiinta laga saaro Gaza sababtoo ah falka noocan oo kale waxay wiiqayaan qadiyadda Falastiin iyo dadaalada lagu dhisayo dawladda madax banaan oo Falastiiniin ah ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Malaysia Anwar Ibrahim wuxuuna Ra'iisul Wasaarahaasi uu amaan kuna taageeray joogtada Masar ay ka geysanayso fududeynta gargaarka bini'aadanimo iyo kuwa caafimaadka ee Falastiiniyiinta la ildiran dagaalka xasuuqa Israa'iil ay halkaasi ka geysatay waxaan ka wada hadlay dadaalada wadajirka ah ee Japan iyo Malaysia
oo hoos yimaada iskaashiga bariga Aasiya horumarinta Falastiiniyiinta iyo dib u dhiska Gaza. Annaga oo xaqiijinayna in wadajirka caalamiga ah ee xoog ay muhiim u tahay kaalmo waxtar leh oo macno leh oo la siinayo Falastiiniyiinta, ayuu sii raaciyay. Masar ayaa toddobaadkan sheegtay in ay ka shaqeynayso aragti dhameystiran dib u dhiska Gaza oo ay burburisay duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee Israa'iil oo socotay muddo 15 bilood ah iyadoo oo aanan Falastiiniyiinta laga barakicin dhulkooda. Dalalka Urdun iyo Masar ayaa wajahaya cadaadis sii kordhaya oo Mareykanka uu doonayo in uu ku qasbo Falastiiniyiinta kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump uu ku baaqay in la qabto maamulka Gaza oo Falastiiniyiinta loo raro dalalka gobolka. Fikradaasi oo ay si weyn u diideen Falastiiniyiinta iyo madaxda Carabta. Trump ayaa aqalka cad ku qaabilay boqorka Jordan Salaasadii, waxa uuna soo cusboonaysiiyay dalabkiisii ahaa in dadka reer Gaza la raro dhulkaasi oo Mareykanka uu maamulo dib u dhis laguna sameeyo si halkaasi ay u noqoto meel dalxiis. waa hagaag daawadayaal, intaas ayaan kusoo koobaynaa qodobadii ugu muhiimsanaa caalamka, balse haddii aad nala soo gaartay dhammaadka qodobadan waxaan mar labaad ka codsanayaa inaad YouTube-keena Barkulan Media subscribe saarto, gambaleelkana aad furato, sidoo kalena muuqaalkan aad saaxiibadaada la wadaagto.